السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسر دوائر قلبي تي في وذكرها الله يا حبيبتي مقالة إدمنتون ودك كندا. عاوها مرتنا وقا استوديوها عمر محمد. وحا برنامج عاو كسابسي هاي واسدي توان كمية وربنا هاي الميلا بدلا كمية دوك لو قد بعد دقيقة. عمر كسر قلبي تي في. وانو هاي آليات بان ما سنتهاي. أديكو مدن وحن شاء الله هاي وحنونا هاي إلي maanta tahay 18 May 2016 meelo badan oo kamid ah adduunka waxa looga dabaaldegayaa 18 May oo lagu asteeyay maalinta qaranimada Soomaaliland oo macnaheedu yahay maalinta ay ka go'day Soomaaliya marka su'aasha ugu horeysa aan jecelahay inaan weydiiyo Cumar isagoo ah professor oo kamid ah Awdal State bal horta 18 May ma looga dabaaldegaa dhammaan gobolada waqooyiga ee Soomaaliya مسكم مديسين ذاتك سير سوماليا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقولين وعن ربعنا كسلام وبهذا قلبي تي في. مرلبنا وعن ربعنا السلام ومدى الصوماليين يشعب كرياض الستيت ملك استوى يكونوا لهيبة. هذا سؤال هذا أوصل لابتو. أرنتا سيكوساب سن سيدي تبون كمي أو لغة المعاملة تهاي مالنتا قرني مدى الصوماليين. de horta qofku uu sheegan karaa wuxuu doona uu sheegan karaa laakiin wax ummadda reer waqooyigu ay u dhan yihiin ama ay ku heshiiyeen ama ay maxaan ku rahay ku astaysteen inay tahay maalinta qarannimada Soomaaliland ma jirto haddii ay qarannimo Soomaaliland ay jiri lahayd waxa weeye qarannimada Soomaaliland waa 26 June de saan hore u sheegay qofku uu sheegan karaa wuxuu doono waxaad sheeganaysaana waa inuu yahay wax aad maxaan ku lahaa vision iyo mission inuu lahaado wuxuu weeye laakiin hadduu labada midna yeelan waayo waxa weeye de waxaasi meel cid lagu burburaa Somaliland waxa la yiri waxay la soo noqdeen qarannimadii la soo noqdeen waxa la yiri waxa lagu asteystay 10 May waxa lagu asteystay 10 May waxa weeye maalintii la joojiyay dagaalkii sokeeyay ee ka dhacay ama ka socday waqooyiga Soomaaliya 1991 markii jabhadda SNM iyo ciidamadii dalka Ethiopia ay qabsadeen gobolada waqooyi intooda badan ay qabsadeen ayaa lagu asteeyay in noqoto maalintaasi maalintii la joojiyay dhiigii sokeeyay ayay ahayd laakiin wax kale oo lagu heshiiyay meesha ma yaalo wixii inta ka sokeeyana waa qasab u noqonaysa mahadsanid waxaa jira gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland inuu ku sugan yahay Mareykanka oo ah wadanka deriskeena haween hore haddaan khaldaneen xaflad ka dhacaysay oo lagu dabaaldegay 18 May wuxuu ka yiri in laga wada hadli karo qarannimada Somaliland taas oo macnaheedu yahay 18 May oo lagu asteeyay qarannimada Somaliland inayba laga wada hadli karo marka hadalkiisa saad macnaheedu كل هذا كسواد السياسة يسوي وجودية برلمان إسلام برهان تانا وحوي جودية حسن معارض وي أنا وحنا مثلا هاي عرّة أدي وحقق قبنا يا أما أولي هاي هلا جوده هالله يعني دودا سوا دودي وجودية شرع جديد تودا كماشة مامو كماشة وشركتوي هراء أدو حقوق قبنا يا هراء حقوق قبنا لها وحبتها كهرة سبا ولا هذا الكمحن كرا قضية دا يو maalinta la aastay waxa ka horeysa wada laashaha Soomaaliland laga hadla ka horeysa wixii ka weynaaba hadii laga wada hadli karay de wax yar laga wada hadli karaba tani wax noqonaysa waa minor case bay noqonaysa marka loo eego saami qaybsiga iyo waxa wada laashaha Soomaaliland marka laga hadlayo taas oo ka horeysa hadii taa laga wada hadlo oo la isku afgarto reewooydu isku afgartaan inay saami qaybsi xalaala oo daacada oo dhaba la yimaadaan wax laga wada hadli karaa maalinta qarannimada waa laga wada hadli karaa ama 26 June laga dhigo ama maalin kale oo reeqooyiga ay u dheeyihiin oo wada baaday kara waa ilaa shaka laga dhigay yani wax lagu heshiin karo kartaa laakiin maanta waxa la yahay anigu wax ninkaasi uu sheegay waxay ku soo kordhin kartaa ummadda ma jirto marka hadalkaaga hadan si raacay su'aashaas beelaha degan Somaliland kuma wada dhanamiya ka go'itaanka Soomaaliya ka go'itaanka Somaliland beel kamida beelaha degan waqooyiga ayaa hormuudka waxaan waliba aanu aaminsanahay beesha lafteedu uma dhanna in laga go'o ama gool isku taaga Somaliland iyo wax xalaal siyaasiyiin iyo iyaro number yar ayaa aaminsan in Soomaaliya laga go'o marka waxaan leeyahay beelihii darafyada iyo beeshii dhexe oo bara ayaa aaminsan in lagu jiro ummadda Soomaaliyeed laga mid yahay haddii ummadda Soomaaliyeed wax laga tabanayo oo dhibaato laga tabanayo ama saami qaybsi laga tabanayo oo waxyaabihii dhibaatada keenay cadaalad darro ka kahay عدد الرد عليها دي روي كتبنا يان كونفريد أو إحنا جوده هذي كروي ميس أنت السكوي ما دولار سخنعيه وإحنا لقوه شيء ولا لقوه شيء كلا
laakiin Soomaaliya kaga go'ana cadaalad darro beelatirsanaysi taasi ma shaqeynayso marka waxaan leeyahay beelaha waqooyiga umadana gool isku taaga Somaliland beel kamida beelahaasi oo waliba siyaasiyiin iyo number yar ay hogaaminayaan ayaa diyaar u ah ama ummadda inteedii kale ku qasbaya inay mataqaanaa laga go'o Soomaaliya inteedii kale waxaa jira suldaan ka soo jeeda salaadiinta gobolka Awdal magaciisa waxaa la yiraahdaa Abshir suldaankaas wuxuu ku macneeyayba 18 May inay tahay maalintii ay heshiiyeen beelaha dega gobolada waqooyiga Soomaaliya oo uu ula jeeday Somaliland marka seed u aragtaa ereyga suldaanka soo baxay ereyga suldaanka soo baxay Suldaan Abshir waan ku hambalyeynaya waana sida uu sheegay weeyi waxay ahayd maalintii lagu aasteeyay in la joojiyo dhiigii sokeeyay ee gobolada waqooyiga ahayd laakiin ma yahay maalin lagu aasteeyay qaarnimo Somaliland mar bay xorowday waxay xorowday 1960 June oo ahayd maalintii ugu horeysay calan Soomaaliyeed laga taago dhulka Soomaalida markaasay Somaliland xorowday sidii way xor u tahay dee anu meel goorta la isqabsaday ee gumaysi kale noo yimid ma garanayo gumaysi cusub oo waddanka yimid ma jirin Soomaali baa Soomaali ka xoroobaysan anu ma arrintaa ma aaminsani haddii ay jirto beelaha qaar aaminsan yihiin inay Soomaali ka xoroobayso dee anu waxaan leeyahay iyaga gaar u tahay laakiin beelaha kale inay ku ashburto ama wax ku ashburaya inay qadiyada qaataan oo ay yiraahdaan waa maalintaan goonay ninka buura ma joogo ma taalo inay yiraahdo waan ka go'ay Soomaaliya waxaan weey maalintaan go'ay waa 18 May xagu ka go'ay maalintuu xoroobay xagu ka xoroobay ninka baran joogo ma taalo ninka seelac joogo ma taalo ninka jooga ma taqaan Luqaya ma taalo ninka jooga Laascaanood ma taalo ninka jooga waxaan ku Buuhoodle wax u yaala maaha yani Soomaaliyan ka goonay nooma anaga dadka deegaanada ku nool ma taalo laakiin beesha dhexe meelaha dad kamid ah aaminsan yihiin Soomaaliya ka go'een taasi waxaan leenahay iyaga gaar ku tahay haddii dabaaldegayaan ciiduudii mayso dabaaldegtaan laakiin beelaha kale maaha inay ku qasbaan ama ay laaluush ku bixiyaan ama ay yani ilaahdaan halano dabaaldego haddii la isku dabaaldegayo laaluush ku dabaaldegayo iyo qasabna 25 sano soo dabaaldegay waxna kama soo socdaan waxba kama jiraan waa xun baa lagu kala cunaa marka hadda waxaad leedahay maadaama oo tahay siyaasi ka soo jeeda gobolada Awdal 18 May loogama dabaaldego gobolka Awdal waa laga dabaaldegaa laakiin waa saa hore u sheegay waxa lagu dabaaldegaa laaluush iyo qasab iyo maxaan ku raadayay waxa dhacay taasina socon mayso qofku waxa uu dabaaldegi kara waxa markay qalbiga ka soo godo waa dabaaldegi kartaa hadii aad noo ifisada qasabka aad leedahay waa lagu dabaaldegaa seeba lagu dabaaldegi karaa qasab waxa lagu dabaaldega waxa weey gobolka shaqaala jooga maamulka Soomaaliland oo shaqeeya jooga arday baa wax ka barata intaas oo kun arday wax ka barta ardaydaasi waxa la yiraahdaa imtixaanka ma geli kartaan hadda ma gelisaan haddii aadan dabaaldegin ama maalinta aadan imanin ardayga maqalay imtixaanka waa laga kasar gareeyaa ninka shaqaalaha ima waaya mushaarka laga jaraa saadaradeed waxa weey dad qasab ku yimiday iyo dad laaluush ku yimiday ayaa dabaaldega waa xaqiiq weey taariikhka kala hadlay ma wax ma taqaanay aan cid igu tiri aniga goob joog u ahaa in dadkaasi qasab lagu dabaaldegiyo qasab ku yimaadaan ninka askari uu ku qasbaya ninka wasaaradda u shaqeeyo ku qasbay ninka macalinka ku qasbay ardayga uu ku qasbay macalinka ku qasbay inuu ardaygaasi hadii kale imtixaan ma gali boqolaal arday waxaan rabaa waxaan garanayaa imtixaankii laga saaray inay hadii ima waayeen meeshii ima waayay oo imtixaankii laga saaray haddaan adiga ku weydiino goormaad dhihi lahayd waa maalintii qarannimada Soomaaliland ama gobolada waqooyi haddii ay dhici lahayd dawladda hayo wali Soomaaliland waxa lama hayo magacna waa magacii dawladda maxaan go'aysiga Ingiriisku bixiyay weey oo dhulkii loo jeedo Somaliland aanu ka mid baan dhulkii Ingiriiska go'aysan jiray ka soo jeeday weey waxaan oran lahaa anigu haddii dadka reer waqooyiga isku yimaadaan oo ay daacad ka noqoto oo la helo dhulkaasi in la yiraahdo warniyo inaga baahan tashan horta oo tala la isku yimaado anu talada hore la isku yimaado tala ma yahay baan aaminsanahay tala waxay ahayd askari wadato oo dadka qori lagu hayo nin qori lagu hayana de waxa weey waxa uu ku hadlaa wax ka soo qaad mare maanta dadkii waxyaabaha ka hadliyay kamid tahay ummadii suldaankii baa hadlaya maanta kale waxaan waa siyaaro marka waxaan leeyahay war wax qasab la yiraahdo adduunka kama jiro qasabna ma shaqeeyo waqtigii uu dhamaada timekii uu soo guray imika uu soo ururay wata maanta la leeyahay 18 May ee intaas soo dalka lagu qasbay maanta lagu taagay leeyahay maxaan ku dabaaldegna dadkii marka waxaan leeyahay inuu hadii la oran lahaa reer waqooyi oo mid noqon lahaa wax wada dooni lahaa waxay noqon lahayd maalinta xornimada waqooyiga waxa weeyaan waa 26 June maalintaas maalintii dadka reer waqooyiga ay ka qaateen gumeysiga Ingiriiska ay ahayd markaas ma dadku xoroobeen dadkuna lama jeer ma xoroobi karaan damar bay xoroobeen waad maasan tahay waqtiga uu nagu yardaadii iyo barnaamijka oo kooban oo aanu kaga hadlaynay dabaaldega 18 May oo ay dad badan u kala arkaan fikrado kala duwan
anoo ku siinaya minute maxaad odhan lahayd dadka u dabaaldegaya 18 May oo gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobolka aad kasoo jeeda saa sheegtay tir khasab baa loogu dabaaldegsiyaa iyo kuwa aan u dabaaldegin ee adigu aad ka mid tahay waa si wanaagsan weeye waxaan leeyahay waxaan horta usoo jeedinayaa dadka reer waqooyiga ee ku nool gobollada waqooyi inay dantooda gartaan dantooda kuma jirto 18 May kuma jirto dantooda waxay ku jirtaa inay wada noolaadaan hadday maamul wada samaysanayaanna maamul cadaacada oo cadaaladi ku jirto oo qanciyo qof kastaba dowladnimadu maaha mataqaanaaye maaha wax la isku qasbo maaha waxa weeye wax ummadda meesha ku nool ay ku wada qanacsan yihiin ama deegaankan kasoo jeeda una ku qanacsanayn maamulka meesha ka jira dee waxba ka socon maayaan deegaanka kale maxaan ku dhahaa barigu haddii ku qanacsanayn waxba ka socon maayaan waxa ummadda intaa lay ka qaydisay waa cadaalad darro ka jirta gobollada waqooyi waqooyiga waxay yidhahdeen waxaan ka dagaalanay cadaalad darro cadaalad darradii ay sameeyeen baa maanta dhulkii haddana maanta halkii ka taagan tu ka daran baa timday maanta marka waxaan leeyahay ninka siyaasiga ah iyo maxaan ku dhahaa nimanka maamulka maanta meesha gacanta ku haya iyo askarta meesha joogta ummadda dan uma soo wadaan shacabka reer waqooyigu waa inay ka fikiraan mustaqbalkoodu waxa uu noqonayaa loo baahan yahay mustaqbalku wuxuu saaran yahay dhalinyarada maanta joogta ee badahaas ku gurasa badahaas kumay gureen haddii cadaalad meesha cadaalad ka jirto gobol yar weeye gobolkaasi wixii soo saaraa khayraadka uu leeyahay haddii loo soo saaro waxa weeye oo dad daacada loo helo yacni wax ummadaasi wey badda kumay dhimateen dadka maanta dhinta ee badaha ku dhintay waqooyiga ugu badan maxaa keenay waa la isweydiiyo yacni oday iyo siyaasi baa ummadda xukuma oday iyo siyaasina dantii shacabkii ama dhalinyartii kama turjumayaan dhalinyarada waxaan leeyahay war waxaani inagii ku saaran yahay siiba dadkii waddanka joogu saaran yahay haddii aad garan weydaan in odaygaasi maxaan ku dhahdaa waxaa ku fikiraya ee ku fikiraya waan soo halgamay waan ku fikiraya mataqaanaa waan goonay waa ku fikiraya waxaan ku dhahdaa waan xoroobay haddii taa laga xoroobi waayo ninka dhalinyarada maanta ku nool gobolka awdal ninka ku nool maanta maxaan ku dhahaa gobolka sool ku noolay ma aaminsana waxaa maanta laga hadlay marka waxaan leeyahay war wax soolay ku qanacdi la helo awdal ku qanacdi la helo reer waqooyi isqanciyo waa la heli karaa wax wanaagsan oo Soomaaliya wargorta lagula galo laakiin waxaan leeyahay arrintaasi ha laga daayo sidaasina ku socon mayso waana waxaan ka dambeeyo oo mustaqbalka ummadda wax u tari kala la helo taa haddii la waayo waxa weeye god kasta lagu sijiraya godkaasina dee waa arkana maanta halku dadkii baday intaasoo kunoo dhalinyara bil kasta lasoo sheegaa oo badaa ku qaraqama sababay oo dadkaasina u baxayaan ma aha mataqaanaaye dhibaato kale oo jirta ma jirto waa cadaalad darro arday wax soo bartay oo 6 sano 8 sano wax la barayay oo waalidkiisa wax barayeen oo afartii dhalinyaro wax baratay ay guriga soo fadhiistaan taasaa keentay markaas mustaqbalna ma arkayo marka waxaan leeyahay warka dabaaldegayo na dabaaldegagaasi waxaas waxba ka socon maayaan lacag hadday ku dabaaldegto waxba ka socon mayso haddaad qasab ku dagaaldegto waxba ka socon mayso laakiin wax kuu taraya wax naftaadu ay raalli ku tahay inaad hesho ood ilaalin karto ood cadow ka ilaalin karto ood horumarin karto in la helo loo baahan yahay laakiin qasab iyo laaluush waan usoo joognay 5 sano marka waxaan leeyahay waxa lagu qaato waxaan cashirna laga barto waxayna soo maray waa cashir laga barto weey waad mahadsan tahay Cumar Maxamed oo ah xubin sare oo ka mid ah Awdal State barnaamijkan caawa ku saabsanaa maxay tahay 18 May oo ognahay inay kuna beegan caawa 18 May 2016 oo in badan oo ka mid ah adduunka looga dabaaldego ayaa waxaa studio-ga ugu soo booqday sida horeyda ku sheegay waa Cumar Maxamed waxaan kusoo koobayaa intaas barnaamijkii 18 May oo magac daray maxay tahay daawadayaal aad iyo aad baad mahadsantihiin Cumar adigan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sidoo kale aad iyo aad baan ku salaamayaa